jungle. inkastoo caafimaadku uu yahay shayga u qaalisan dunida, haddana waxaa laga maarmaan ah inaan muujino feejignaan iyo taxaddar dheeri ah si aan u muujino jiritaanka caafimaad dhammaystiran. Haddaba inta aanan ku bilaabin xaqiijinta jiritaanka caafimaad dhammaystiran, fadlan muuqaalkeena laag saar haddii aad ka heshay mahadsanid. Haddaba daawada ma is weydiisay maxaa xaqiijin kara jiritaanka caafimaadkeena dhammaystiran? Jiritaanka caafimaad dhammaystiran waxaa mas'uul ka ah nafsadaada. Si aad u xaqiijiso jiritaanka caafimaad dhammaystiran, waa inaad samaysaa dadaaladan soo socda ama aad la kaashataa dhakhaatiirtan aan kuu soo wado. Dhakhtarka koowaad waa Alle subxaanahu wa tacaala. Alla weyne oo xerigiisa si fiican aad u qabsataa waxay la micno tahay inaad xaqiijiso jiritaanka caafimaadkaaga dhammaystiran. Dhakhtarka labaad waa inaad cabtaa biyo badan maalintii iyo habeenkii. Halka dhakhtarka saddexaad uu noqonayo inaad samayso jimicsi joogto ah maalin waliba. Ku raaciya dhakhtarka afraad ayaa noqonaya inaad qaadato habo dabiici ah oo weliba nadiif ah si joogto ah maalinle. Cunto fresh ah misna isku dheeli tiran. Waqtigeedana ku cun cuntada si aad u xaqiijiso jiritaanka caafimaad dhammaystiran. Ogow waxaad gacanta ku haysataa dhakhtarkaagii shanaad. Ku dadaal nadaafadda jirkaada, goobta aad ku nooshahay iyo deegaankaada. Ogow waxaad gacanta ku haysataa dhakhtarkaagii lixaad. U seexa dhinaca midig maalintii iyo habeenkii. Si kastoo aad u seexanayso, waxaa qasab ama waajib kuga ah inaad u seexato dhinaca midig, maxaa yeelay waxay tani kaa caawinaysaa in aad mar walba xaqiijiso jiritaanka caafimaad dhammaystiran. Ogowse waxaad gacanta ku haysataa dhakhtarkaagii toddobaad. Seexo hurdo kugu filan ugu yaraan 8 saac habeenkii. Tani waxay la xiriirtaa dhakhtarkii toddobaad, balse ogow waa dhakhtarkaagii 8aad inaad seexato 8 saacadood inkastoo ay habeenkii kugu filan tahay 8 saacadood. Waa kan dhakhtarkaagii 9aad, waa inaad isticmaashaa malab haddii aad heli karto mid saafi ah. Sidoo kale isku day xabad sawdaa oo meel walba laga heli karo inaad isticmaasho. Ogow waa labada dhakhaatiir ee aadka ugu muhiimsan marka loo fiiriyo dhanka kale ee dawooyinka dabiiciga ah. Dhakhtarka 10aad waa inaad ku qanacdaa wax walba ee Alla weyne ku qora, shar iyo khayrba. Muhiimadu waa inaad nafsadaada qancisaa. Jungle.